waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho ka dhacay kulan u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo duubabka dhaqanka soomaaliyeed. waxaa kaloo kulanka hortii iyo dabadiiba qabsoomay kulamo gaargaar ah iyo kuwo guud oo ay yeelanayeen duubabku. sidoo kalena waxay odayaashu kulamo la qaateen siyaasiyiinta mucaaradka ee quudareynaysa inay doorasho furan kula tartamaan madaxweynaha soomaaliya. kulamadani waxa ay ka dambeeyeen duubistii ugaaska beesha murasada ugaas cabdirasaaq ugaas cabdulaahi, kaas oo ay kasoo qeyb galeen inta badan hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida. haddaba waa maxay kaalinta odayaasha dhaqanka xilligan kala guurka ah? kusoo dhawow sawirka guud. magacaygu waa maxamed cabdi xaraare. maanta waxaan isdul taagi doonaa qodobka, laakiin ka hor intaa 60 libiqsi wararka caalamka haddii aanu eegno. xaalada bariga dhexe ayaa weli kacsan. madaxda militariga mareykanka ayaa la filayaa inay warbixin siiyaan madaxweyne Donald Trump oo ku saabsan qorshayaal cusub oo ku aadan tallaabo militari oo ay doonayaan inay ka qaadaan Iran. dhanka Iran-na dowladda Iran waxa ay tilmaantay ama ku tilmaantay cunaqabataynta la saaray dekedaheeda mid aan la aqbali karin, xilli uu weli sii kordhay walaaca laga qabo saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta xirnaanshaha marinka Hormuz. haddii aanu eegno weeraradii London ka dhacayna, booliska UK ayaa sare u qaaday heerka khatarta argagixisada guud ahaan dalka kadib markii nin asalkiisa Soomaaliya uu toorey ku dhaawacay 2 qof oo Yuhuud ah gudaha magaalada London. Pakistan ayaa la sheegay in ay jabisay go'doomintii Mareykanka uu saaray dalka Iran, iyadoo qaaday tallaabooyin lagu xoojinayo xiriirka labada dal waa Iran iyo Pakistan. war saaxiib yaal aad baan idiin salaam cabdijaliil cusmaan hiya. maxaad iga qariseen library-ga ugu weyn ama maktabadda ugu weyn ee online-ka ah ee ay Soomaalidu ay leedahay ee loo yaqaana Bookoob? maalmahan waxaa waqti badan aan ku bixiyay dhageysiga iyo akhriska buugaagta caalamka loogu akhriska badan yahay haddii ay la xiriiraan sayniska, siyaasadda, falsafada, sirdoonka iyo awoodaha iyo habfakarka oo dhammaan diyaarkoogu ah applicationka loo yaqaana Bookoob. Bookoob muxuu yahay haddii aad isleedahay? Bookoob waa app digital ah oo aad kala soo degi karta Google Store iyo Apple Store, isla markaana ay diyaarkugu yihiin buugaagta caalamka loogu akhriska badan yahay iyaga oo Soomaali lagugu soo turjumay. ayaad dhegeysan kartaa haddii aad rabtana summary ahaan aad u akhrisan kartaa. anigu maalmahan halkaasi ayaan u badnaa oo markasta oo aan gaari saaranahay oo aan train saaranahay oo aan safrayo waxaan la soo degaa xitaa offline ahaan aad kula soo degi kartaa aabka Bookoob buugaagta ku jira. dhalinyaro firfircoon oo qiimo badan oo aan halkan ugu mahad celinahay ayaa barnaamijkaasi ku farayeystay. waxaa la dhahaa waxaa la joogaa information age baa la jooga, laakiin waxaad sidoo kale u baahantay inaad ogaato waxaa la joogaa waqtigii waxbarashada ayaa la joogaa oo aad wax kasta online-ka aad iska baran lahayd, buugaagta aad dhegeysan lahayd, cilmigaagana aad kororsan lahayd maalin kasta. anigu nolosheeda maalmaha wax weyn ka bedelay Bookoob oo 4 saac dhagaha igu jira oo aan dhageysta. barnaamijkan waxaa daaha ka rogay amaba diyaariyey dhalinyaro Soomaali oo aad qiimo badan. waxaa aasaasay applicationkan oo gacanta ku haya saaxiibkay Maxamed Xaraara, madaxii hore ee BBC Somali Television-ka oo ah hogaamiye dabcan aan aad u xishmeeyo. marka saaxiib yaal kaliya social media waqti ha ku qaadanin, sidoo kale aqoon kororso oo hadda la soo deg Bookoob adiga oo buugaagta online ku dhageysan kara isla markaana ku akhrisan kara. buugaagta aan jeclahay ee ku jira waxaa kamid ah buuggan aadan ducaali aad taqaanaan For the Record, isaga oo summary ah ayuu ku jira oo aad dhageysan kartaa hadda, iyo buugaag kasta oo aad niyadda ku haysta ugu saameynta badan caalamka. fadlan hadda la soo deg Bookoob oo maanta maskaxdaada kobci. aan dib ugu noqdo sawirka guud ee duubabka dhaqanku waxay asal ahaan udub dhexaad u ahaayeen dhismihii jamhuuriyadda saddexaad kadib 10 sano oo ay dowladnimadu ka maqnayd dalka. waxay ahaayeen marjaca loo laabto marka la waayo qaacido siyaasadeed oo lagu amba qaado iyo hab ay siyaasiyiintu talada ku wadaagi karaan. iyaga ayaa loo wakiishay soo xulista xildhibaanada dooranaya madaxda sare ee dalka, dhanka kalena noqonaya aasaaska dowladnimadu ku taagan tahay guud ahaanba. sidoo kale waxa ay duubabku lahaayeen kaalin ay aad looga maarmayn oo aad muhiim ah oo soo baxaysa hadba kolka ay siyaasiyiintu ku guuldareystaan inay farqiyadooda ama khilaafkooda ku xalistaan fagaarayaasha loogu talagalay siyaasadda sida baarlamaanka, hay-adaha garsoorka,
madalada wada tashiyada qaran iyo wixii lamid ah, iyadoo ay si guud odayaashu kaalinta weyn ugu jireen geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya. Haddana kuwa Muqdisho si gaar ah ayay u muuqan jireen marka arrintu gaarto qaaba qowsayn. waxaa si weyn loo xusuustaa kaalintoodii ku aadanayd la dagaalankii ciidamada Itoobiya ee Muqdisho soo galay 20 sano ka hor iyo diidmadoodii ku aadanayd siyaasadda dowladii ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed. waxaa kaloo xusid mudan in dowladda lafteeda ay sheegan jirtay in uu jiro garab odayaasha Muqdisho ka tirsan oo safkeeda ku jiro, taas oo muujinaysa sida dowladda iyo mucaaradkuba ay mar walba ugu loolamaan kasbashada odayaasha marka ay xaaladda siyaasad ka tagto. guud ahaan xilliyada kala guurka ah waxaa oogada soo baxaysay kaalinta odayaasha, waxaana si gaar ah saaxada markasta loogu arki jiray odayaasha magaalada Muqdisho. laakiin iyada oo dhawaanahanba ay dowladda federaalka Soomaaliya ahmiyad gaar ah siinaysa kasbashada iyo gacan ku haynta adag ee magaalada Muqdisho si ay uga gaashaamato in la mariyo tubtii dowladii iyada ka horeysay la mariyay, ayaa waxaa soo baxaysa sansaan kale oo muujinaysa in odayaasha Muqdisho aan markan kaligood lagu daawanin faragelinta siyaasiyiinta. waa haddii ay fashilmeen oo odayaasha kale ee Soomaaliyeedna ay iyagana bakooradahooda la soo kala baxayaan. madashii duubista ugaaska Mursada ugaas Cabdirasaaq oo isku keentay inta badan duubabka dhaqanka Soomaaliya iyo kulamadii ka dambeeyay ayaa waxa ay muujinayaan in xitaa haddii ay dowladda xooga saarto odayaasha iyo dadweynaha Muqdisho aysan markan odayaasha kaliya aysan u noqonayn loo baahan yahay guud ahaan odayaasha Soomaaliyeed. Garaad Jaamac Garaad Cali oo isaga iyo odayaasha kale ee waqooyi bari ay mar dhow uun halbowla u ahaayeen gulufkii magaalada Laascaanood iyo deegaano kaleba looga saaray maamulkii Somaliland ayaa ka mid ah duubabka sida furan uga digaya dowladda federaalka Soomaaliya inay go'aan gaar ah gaarto oo ay ku maareynayso marxaladda kala guurka, isagoo sidoo kaleentana qaba in haddii ay taasi dhacdo loo baahan doono kaalinta odayaashu inay soo laabato oo siyaasiyiinta damaca siloon gacanta laga qabto. ugaas Yuusuf ugaas Xasan oo aan isagana looga baran in uu arrimaha siyaasadda farageliyo ayaa maanta waxaa muuqatay inuu garowsaday inaan siyaasiyiinta loo sii dayn karin inay ku falaadaan wadajirka ummadda. sida wararku sheegayaan, ugaaska ayaa si toosa uga hor yimid damaca villa Soomaaliya ay ku doonaysa inay go'aan iyada u gaar ah oo aan taageerada dadweynaha haysanay mar kale lagu soo dhiso ama ay kusoo dhisto maamulka Hirshabelle. sidoo kale ayuu ugaasku fagaaro ka soo jeediyey in wada hadal iyo afgarad looga gudbo marxaladda kala guurka ah, odayaashuna ay iska dhowraan inay la kala saftaan dhinacyada siyaasadda. dowladda federaalka Soomaaliya iyo oo in dhawaalaba lahayd istaraatiijiyad ay ku doonayso inaysan Muqdisho ka soo bixin odayaal amaba xooga kale oo dhaliila siyaasadeeda ku wajahan sida looga gudbayaan marxaladda kala guurka, ayay hadda u muuqataa inay mawjado kale oo cadaadis lihi kusoo furmayaan. ma isku ka saaran yahay sawirka guud.